aniga waxba ma qarqarnayo waxa soo maqlay hada fursada ku weelay Soomaha waxa dadka adiga ka garbaxo adigu sheeg laakiin dad fursad ku weelay waxa ku diina waxa maqlo ku diina dayax maxaasa u sameysay ani gadalka hadal waxa ma qaani runta ku sheega saaxiibka yaa fahad kadib buuqii iyo hadalhayntii xooganeed ee maalmihii ugu dambeeyay ka dhex taagneed reer Muqdisho iyo reer Jabuuti waxa arintaasi ka hadlay oo si public uga hadlay fanaanka Maslax Mideeye kaasi oo ay barta TikTok live isugu yimaadeen fanaaniintii dhaleecaynta loo jeedinayay mid ka mid ah gaar ahaan fanaanka Dayaxdal Nuurshe kuwaasi oo weydiiyay su'aalo kala duwan oo ku saabsan in fanaanka Soomaaliyeed ee Xabad Muuse uu dhashay dalka Jabuuti si weyn loogu bahdilay magaalada Muqdisho isla markaana fanaaniinta reer Muqdisho aysan ka soo qayb gelin showgiisii uu ku qabsaday magaalada Muqdisho walow xilligan ay socoto qabanqaabadii ugu weyneed ee ku aadan fanaanka Xabad Muuse show uu ku qabsanayo dalka Jabuuti 5 bisha soo socota kaasi oo si weyn loo qabanqaabinayo Maslax Mideeye ayaa su'aalo kooban weydiiyay Dayaxdal Nuurshe kuwaasi oo uga jawaabay walow uu yiri in dalka uu ka maqnaa isla markaana uusan waxba kala socon showgaasi sidoo kale waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho uu ku soo dhaweeyay fanaanka Xabad Muuse oo bilihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho reer Jabuuti si weyn ayay uga caroodeen in fanaankooda aan si weyn loogu soo dhaweynin Muqdisho isla markaana aan showgiisa aysan ka qayb gelin fanaaniinta reer Muqdisho gaar ahaan Dayaxdal Nuurshe iyo fanaanka Ismaaciil Arka Dayaxdal Nuurshe waxa uu ku andacooday in uu ka maqnaa wadanka isla markaana uu safar aaday balse fanaanka Maslax Mideeye ayaa sheegay inay muhiim ahayd in si weyn loo soo dhaweeyo fanaanka Xabad Muuse maadaama fanaaniinta Soomaaliyeed si weyn loogu soo dhaweeyo dalka Jabuuti oo macna malahan in hadii mataqaana aan rabo inay taa dhacdana ma arkaan intaan u soo baxo gaari soo raaco guriga uu degan yahay aan meesha ku duwan video mugtahay aniga meesha it's not my place kiisu ah aan inta soo baxno aan wada qadayna aan gurigiisa intuu ugu imaado ma aanan u baahiyeen maarta qorshahaas maarta wax lagu sameeyay yani asoo bil iyo xoogaha jooga kadib ay ogaada in soo bax guriga ka soo tagay aan ugu imaado intaan fadhigiisa anoo maarta bahalkii maxaa la ii sheegay marka showga kadib miyaan sakor ما كور وها برنامج كور ها marka kadibna wallahi qadar baa dhacday oo ma aragtaa aniga gudubta waxaan maxaa la ii sheegay in orada iska galnay gabadheeda dhalashada habeenkii ka horeeyay aan sameeyay habeenka ku xoogaha dhibaato yar dhacday laakiin wax isaga ku saabsan waxa anaga nagu saabsan dhaxdeen maba ahayn ma baan wixii in surprise ay nagu noqdeen laakiin ana waxaan ku go'aa haduu maanta intixaabada meesha soo fariisto yiraahday wax iga haleeyay ninka wax alle ugu horeeyay dayaxo fiir mid ku sheega ani maslax la dhaafay sax mid badan asnaqana fiir dadka ma aragto social media way dadkii la isku diray laga dhax shaqeynaa shadaay fiir ani aad mid badan asnaqana ay garasa ma saaxiibana mid badan asnaqana hoos ka siinama aqaan aniga waxba ma qarqarnayo waxa soo maqlay hada fursada ku weelay Soomaha waxa dadka adiga ka garbaxo adigu sheeg laakiin dad fursad ku weelay waxa ku diina waxa maqlo ku diina dayax maxaasa u sameysay ani gadalka hadal waxa ma qaani runta ku sheega saaxiibka yaa fahad ani adoo ku sheegay ninka waxa tiri afkiisa wuxuu ka sheego dayaxo way qabtaa ba tiri Soomaha way qabtaa ara kuleeyo dadka taasoo warac hadal cad maahan oo hadal rageedo nadiif oo hadal dhamaystiran oo la sugu soo noqon balna waa lagu la fadhiisan waliba oo Google baa la dhigi saaxiib sharaf la waliba ma fahanti horta niyo fanaaniin aan nahay saaxiib meel lama ka maarmayno suuq fanaaniinta maada qurux badan loo soo dhaweeyaa waa sharfaa madaxa la saartaa caleemaha loo dhigaa wallahi ruuga casba loo dhigaa saaxiib ما wallahi nin foorra ka baxo ma fahanti inuu ku sheegay aniga Jabuuti marka noqoto Jabuuti de moogta weligay markii ugu horeysay inta aan walaal diyaarad aan raaxmeesho ugu horeysay aan raaxo waay